haddaan xagga caafimaadka u gudbo qofka Soomaaliga ah darajo kasta ha lahaado in markuu dhakhtar u yimaado ama kaaliyihiisu yimaado inuu eego isagoo aan xoolo ka qaadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaantiin soo dhawaada meel kastoo ay joogtaan. maanta waxaan ka hadlaynaa arrin aan weligeed laga hadlin, arrintaas oo ah sariiraha caafimaadka. waxaa laga yaabaa in badan oo annaga naga mid inaan arrintaas aanan ku baraarugsanayn, laakiin maxay yihiin sariiraha caafimaadka? waxaa jira tiro yar oo marka aad maqasho aan markiiba la dareemin culayskeeda. waa tiro kooban oo hal mar kaliya ah la arko, laakiin marka aad gudaha u gasho macnaheedu waxaad ogaanaysaa inay kuu sawirayso xaalad dhan. tiradaasi waa sariiraha caafimaadka Soomaaliya. qofka caadiga ah markuu maqlo isbitaal wuxuu maskaxdiisa ku hayaa dhismo, albaabo, dhaqaatiir, kalkaaliyaal caafimaad, qalab, daawooyin, cirbado, faleembooyin, waxyaaba sidaas oo kale ah. laakiin khubarada caafimaadka marka ay cabirayaan awoodda nidaamka caafimaadka waxay eegaan waxa ugu fudud oo ah imise sariirood ayaa diyaar ah marka dadku ay xanuunsadaan. imise qof ayaa la dhigi karaa haddii cudur dilaaco. imise hooyo ayaa heli karta sariir ay ku dhalaan ama ay ku fooshaan marka ay rabaan inay dhalaan. imise dhaawaca ayaa la qaabili karaa haddii shil weyn uu dhaco. ilaahay naguma keene. marka sariirtu maahan kaliya meel jiif. sariirtu waa awoodda nidaamka caafimaadka. waa cabir lagu ogaado sida dal dhan ugu diyaar garoobay maalinta ugu adag ee soo wajahda. waana sababta ay muhiim tahay in adduunyada oo dhanba ay ka fikirto marka ay rabaan inay arrimaha caafimaadka ay qiimeeyaan. dalkan caafimaadkiisu waa fiican yahay ama wuu liitaa. meesha ugu horeysa ee laga qiimeynayaa waa sariiraha uu haysto oo isbitaalada u yaala haddii musiibo ku dhaco dadka la jiifi karo. sababtoo ah haddii Soomaaliya musiibo ay ka dhacdo ilaahay naguma keene, Kenya ayaa dhaqaatiir kuusoo diri karta, Djibouti waa kuusoo diri karta, Yurub waa kuusoo diri karta, meel kasta lagaa soo diri karaa. laakiin ka waran sariirihii aad dadka saaran lahayd haddii aadan haysan. waa sababta laga rabo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan arrintaas. dad badan ma fahmi karaan su-aalaha noocaas oo kale ah. waxay isaga arkaan in sariiruhu ay yihiin wax aan muhiim ahayn. Soomaaliya maanta waxaa ku nool ku dhawaad 19 milyan oo qof. marka la eego xogaha caafimaadka ee la heli karo, dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay qiyaastii 17,000 ilaa 18,000 oo sariirood. macnaheedu waxa ay tahay in 3 qof ee Soomaali ahba ay heli karaan hal sariir oo yar.